لدوفيني اللي دين هذا واحد سنة جيران نفتال كلجيا باورتي نفتل aan loo dhigay كلجيا نفتال maxaa la geeyay Soomaaliya la geeyay kaalmaha geeyay siinki ba dhoofay naftadu ba dhoofaysa Allah waxaad degma lagu qaada degmana lama geeyo gobol ba la geeyay waxa la geeyay Soomaaliya waga si toos ah Soomaaliya loo geeyay gariga ka lugaynaysa waa ka lugaynaya aniga ka lugaynaya naftal aan awada way silsilaga markay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta iyo goob kasta aad joogtaan halkan waa Daacad Media waxaan ku sugannahay bartamaha maamulka magaalada Dhagaxbuur kaasaan si toos ah u bilaabi doona barnaamijkii su'aalaha wadada waxaan soo hordhacmaayo su'aal iska fikrada caawa abaalmarin iyo waxaas ma jiraan daawasho wacan ugu horreyn soo Daacad Media da kobla magaca waan ku dhawaay Daacad Media aad baan islaamay dhamaantiinba ilaa YouTube saasay tahay waa fikrad fiican in su'aalo la isweydiiyo oo la kala faa'iideysto marka hadda waxaan taaganahay waa su'aasha iyo jawaabteeda waxaad ka mid tahay dhalinyarada soo kacaysa waxa macquul la dhawaan inaad ka mid noqoto mas'uuliyiinta deegaanka ama meelo kale haddii laga dhigo madaxweynaha Soomaaliland aad noqoto madaxweynaha Soomaaliland ma ku dar lahayd Soomaaliya mise waxaad ka dhigay waxaad u raadin lahayd ixtiraam mee horta wallahi Soomaaliland iyo Soomaaliya imkaan isku ma dareen saasay tahay sababta ixtiraaf waan u raadin lahaa laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya isku ma dareen fikradeedu waa taa sababta ixtiraaf u raadin lahayd maxaa weyn sababtan ugu raadin lahaa waxay tahay marka had ka hor baa waxay yiraahdeen xorriyaddanadii 60 kiilo taagan soo ceshinaa had ka yiraahdeen ma taasun baa lagu wada taagnaanayaa marka imka xorriyadda soo leeyahay ha aad ma san ugu soo Daacad Media da kobla magaca waan ku soo dhawaay walaal magacaygu Cabdiraxiin Nuur Ismaaciil Cabdiraxiin aad baan u faraxsanahay ka mid noqoto qowlaasha barnaamijka caawa waa su'aalihii wadada magaalada Dhagaxbuur soo warta barnaamijka caawa barnaamijka aad baan u soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay 100% su'aal fikradaada su'aasha isku dhahaysa haddii laga dhigo madaxweynaha Soomaaliland aad noqoto Soomaaliland ma ku dar lahayd Soomaaliya mise waxaad u raadin lahayd ixtiraam waan ku dar lahaa Soomaaliland Soomaaliya sababtoo ah waa gobol ka mid ah goboladan kale oo wax la qabtaa Puntland iyo Jubbaland iyo adigu maxaad aqoonsan tahay shakhsi ahaan kala dhalinyarada Dhagaxbuur ahaan waxaan anigu u aqoonsanahay oo oran lahaa in Soomaaliya iyo Somaliland waxba ma kala aha waa isku mid waa hal magaalo baan wada oran lahaa fikirkayga sababta Soomaaliya ugu darayso maxaa waxa weeye sababtoo Soomaaliya Somaliland wax loo kala qaybiyaa ma jirto haddii dhinac walba ahaan lahayd bulshada wada noolaanshaha dhinac walba waxaan oran lahaa waa isku mid fikirkaygu waxa weeye in Soomaaliya Somaliland aan la kala qaadin isku mid laga dhigo aad ma san tahay